waxaan leeyahay qof walba oo Soomaaliyeed qof walba oo naga mid ah meel walba oo uu dalka ka joogo ama ay ka joogto mucaarad iyo muxaafid oo fursad u heshaa inuu qarankiisa matalo ama ay qarankeeda matasho waxaan taariikhda ku gali doonaa sida aan u ilaalino qarannimada madax bannaanida sida aan u ilaalino hantida qaranka ugana fogaano musuqmaasuqa sida aan u ilaalino midnimada sida aan u ilaalino xuduudaha badda hawada iyo dhulka Soomaaliyeed ilaalinta calanka ayaa ah ilaalinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ilaalinta calanka ayaa ah ilaalinta taariikhda ummadda Soomaaliyeed ilaalinta calanka ayaa ah in la ilaaliyo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed ilaalinta calanka ayaa ah midnimada sababtoo ah wax aan kulligees ku raacsanahay oo qalbigeena ku qoran waa calankaas aan caawa isugu nimid inaan u dabaaldegno waxaan leenahay kulligeen aan xajino calankaas walaalaheenii naga horeeyay ay naf iyo maal ku soo bixiyeen dhiig u soo horeen si annaga oo ah kuwa hadda nool aan ugu soo gudbino kuwa naga dambeeya innagoo xor ah kuna nolol ka wanaagsan tan hadda aan joogno si aan ugu gudbino carruurteena hambaliyo waa mahadsantihiin